ismaan lahayn dadka Soomaalida waxa ku jira dad bahalka xaruulwaalka la yiraahdo shabaha ilamay ahayn marna niyadeeda kuma soo dhicin oo maas lahayn dad noocaas ah ayaad ka helaysaa maan filan haynin inay Soomaalida ka mid yihiin dad madaxa ku socda oo caagahana kor u qaada oo gacmaha dhulka dhiga baabacooyinkii dhulka dhigi lahaayeen lugahana wax ku cuna dad nooca shabaha ayaa Soomaalida ku jira maas lahayn shanta geed ay hoos harsadaan Soomaalidu meel daafaha adduunka ka joogaanba tamarnaba maan filan haynin maan filaneyn bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacay waa Ismaaciil Muuse halka iga daawanaysan ama igala socotaan waa barteeni aynu ku lahayn mareegta YouTube-ka Ismaaciil Said fadlan dad ku cusub tahay channel ku soo dhawow subscribe tano furo gambeelkana saar videogana la gare maanta waxaynu ka hadli doonaa barnaamij aydan hore iga baranin ama aanan hore uga hadal oo ay waxoogay yara tahay qariib oran doontaa warheed maxaa kugu geeyay halka maanan kugu ogeyn hase yeeshee haddana waxay ka fursan weyday in aan ka hadlo waxna ka ilaahdo waxaan maanta wax ka odhan doonaa arrin aan la yara yaabay oo aan goor dhaweytoole ila kulantay arrintaas oo aan aad ugu qaadan waayey Soomaalidan waxay ku mahmahdaa ama tidhaahdo harays u leedahay adduunyada ninkii nolow maxaa aragti ku laaban maansadii yarida koobnayd ee aan u bixiyey guruwa qaneecana waxa ka mid ahaa oo beedad ka mid ah ku jiray maalmaha adduunyadan muddo ruuxa noole taxtaxaasho meelahan wajaafada ma waayo inta adduunyada nooshahay aduu ilaahay ku daayay nafta ayaama hayrad meelahan iska joogto wax ka yaabiyo arkimaysid waayimaysid wax ka farxiyo waayimaysid waxaad u qaadan weydo arkimaysid marka arrin yar oo aan aad ula yaabay ayaan doonayaa bal in aan hadda ka ilaahdo wixii aragtideeda ama say ila muuqato ismaan lahayn dadka Soomaalida waxa ku jira dad bahalka xaruulwaalka la yiraahdo shabaha ilamay ahayn marna niyadeeda kuma soo dhicin oo maas lahayn dad noocaas ah ayaad ka helaysaa maan filan haynin inay Soomaalida ka mid yihiin dad madaxa ku socda oo caagahana kor u qaada oo gacmaha dhulka dhiga baabacooyinkii dhulka dhigi lahaayeen lugahana wax ku cuna dad nooca shabaha ayaa Soomaalida ku jira maas lahayn shanta geed ay hoos harsadaan Soomaalidu meel daafaha adduunka ka joogaanba tamarnaba maan filan haynin maan filaneyn ilamay ahayn ismaan odhan marnaba Soomaalida waxa ka mid ah dad iyagu ku fadhiyo oo madaxa kaga taagan inay horumar gaadhaan ay meel qabtaan oo iyagu doonayay inay dhadhaar ahaadaan dhulka hoostiisa ku naban arrintaas oo dhan waxaan uga socdaa oo aan intaas oo arasho soo maray arrinkan ay idin sheegay aan leeyahay maanta ayaan la kulmay anigana arkay dadweynaha ku dhaqan bulshada magaalada Hargeysa ayaa mikrofon lala dhex maray teesan waxa la yiraahday bal warkiina iyo fikirkiina soo aragtaan ka dhiibta ninkan cusub ee marka loo rajeynayo inuu maxay toole maayirka la wareego dadkii bulshadii aara kala duwan ayay kaga jawaabeen sideedana dadka marka la qaybinayo laba qaybood marka hore loo qaybiyaa qaybiyada in la xuso ama la sheego ma ahaba qayb ay tahay in la sheego qaybtaasana si yara kala qaybsanta oo dhowr fikir yeelata qaybta ay tahay marka dadka marka hore la qaybinayo in laga hadalo waa qaybta afka wax lagu soo riday ama afka loo soo buuxiyay ee laga odhahsiiyay iyagu ma odhanayaan oo ma dhahayaan oo niyadooda ka shaqadii laabtooda wixii ku jiray ka sheekayn maayaan waxay ku kalsoon yihiin odhan maayaan ee waa wax laga odhahsiiyay wax laga dhahsiiyay weeyaan aduu doono wuxuu isagu aaminsanaa ama wuxuu qoy wax ka soo horjeedaba ha ahaado waa wax la odhanayo dhahoon adigu saasuna ahaato indhahaas ku qabo ha fakirin hareeraha eegin baalaha baaladeemon wax kale ma jiraan saasun dheh marka dadkaas iyagu ma aha dad la xuso waa dad xaggan naga dhigiyaga dadka kale caadiga ah marka la qaybinayo laba loo qaybiyo ama saddex aan odhan karnaa markaad meel wada socotaan aad meel higsanaysaan aad meel doonaysaan inaad gaadhaan meeshii aad ku socoteen haddii sidaad doonaysay idin noqon weydo dadku laba bay u kala jabaan mid yidhaahda war meeshaan ku soconay dariiqan aan u maraynay saan u soconay way inoo noqon weydo haddaan xaggan ka wareegno aan meel kale ka dhowdahay ka gallo sidaad u aragtaan qaar yidhaahda may anigu taayada horaan kusii adkaysanayna oo indhaha xabag soo marsada iyo qaar yidhaahda waaye aynu tan kale wareegnaad sheegayseen maxaan ugu wareegnaa sababaha noo sheeg oo de markaas sababay marka loo sheego ama ku qanca ama dee kaasoo horjeesta labadaasay u qaybsamaan intooda badan kuwa aan marka hore iyagu soo sheegnay kuma jiraan tan aan maanta sheegayna labadaas way u qaybsameen dad iyagu leh anu ma tamaan ku sii jirayna soomaanu ahaanayna dadka sida hadlaya ee nooca u fakiraya waxaan odhan lahaa talow may dhex marmarin miya magaalada Hargeysa ay ku nool yihiin hareeraheeda may baaladeemonin miya dhulka hoose may eegin miya wadooyinkooda iyo dariiqooda cayn ku eegyahay may arag miya dad socda ma aha miya ma dad guriga ku qufulanba ma dad guri hoostiga soo hadlayaba ma dad aan nooleen adduunkan jooginba ma dad meel kale joogaba heer dadka qaar waxa ay gaadhaan marka wanaagaaga ay maxay ahayd tole la yaabaan inay yiraahdaan war qofkan naga dhex saara waa dad iswanaajinaya oo wanaagsan
siduu ilaahayba qur-aankiisa ku xusay qoomkii uu soo diray nabiyullaahi luud markii uu dhan walba kala hadlay uu si walba u hooga tusaaleeyey uu wax kasta kula hadlay uu ku yidhi war isagoo ilaahay dad wanaagsan oo dayibaada idiin sameeyey oo ooriye idinka dhigay oo yidhi dariiqa xaqa ha u soo mara maxaad kaga meeraysanaysaan ragga iyo meesha qashinshaarka ah jawaabtooday siiyeen waxay noqotay inay yidhaahdaan war dadkan uu nebigan wato iyo isaga laftiisiiyo wixiisaba ka saara magaalada iyo qaryada iyo dhulkaynu ku nool lahayn oo sababtaynu ga saaraynaana maxay tahay maxaa kalifay in laga saaro nebi ilaahay soo diray iyo dadkiisii wanaagsanaa ee raaciyey dhulka cillada keliya ay u sameeyeenna waxay ahayd inay yihiin dad daahira dad nadiifa dad istaahirinaya dad wanaagga jecel intaasay ku naceen dadka maanta saa u hadlayana waxaan odhan karaa waa dad kuwa waddaday mareen sunnadii dariiqa ay kuwaas raaceen amin bay kunana raaceen ee dad ka duwan maaha arrin la yaabo maaha waana jirtaa waana dhacdaa waana dhici jirta weligeedba wuxuunbaa la yaab ila noqotay dadka maanta ku nool halkan ogahay caynka way eeg tahay aan islaa waxay rajaynayaan waxay sugayaan waxay inuun doondoonayaan inay bal wax sidan ka bedelaan arkaan ay nololtan ka bedelaan bal maalinun ee haddana ku doodaya tanba annaga noo wanaagsanayd may arag miyaa waxa qashin waddooyinkooda quban may arag miyaa waxa suuqooda shuuro noqonayso marka roobku da'o may arag miyaa hooyada masaakiinta ee suuqa dhexdiisa ku iibinaysa xabadda yar muus ee la taagan ee muuska ayaan marka laga iibsado agteeda inta lagu diiro ay ku kufaysa hadhow markay kacayso may arag miyaa hooyada suuqa dhexdeeda ku iibinaysa caanaha ee markay haanteer ee wax ka lulaysay furto dooriyaanka iyo duqsigu qarinayo may arag miyaa caafimaad xumada ka taagan dhulkeena may arag miyaa gurboodka habeen oo dhan u soo jeeda ee dhuraaya biyihii yar ay afkooda ku shuban lahayn cabeeyeen dadka caynkan waxaan ku tilmaamo garan maayo waxaan leeyahay fiidkoona gaarsiiya bartii joogan u geey guryahooda u geeya waxaa la imanaa dhulkeeda ku nooshihiin walaalayaale u soo baxay iftiinka oo indhaha kala qaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu